horta mushkiladda ugu weyn ee nagu sameeyeen waxa weeye qurba joogtu problemka aan taabta bartiisa lagu tagayay waxay nagu qaali gareeyeen guurkii waxaan noo raacay wadankii oo shaqo fiican lahayn sida gabdhahaas ka hadlayeen waayahay haddii waaye guurka aad nagu qaali garaysay ama adigu xalaal ku soo hel ama xaaraan ku soo hel ama de qofku soo doonaba ku soo hel qurbaha sheekooyin badan baa laga keenaa laakiin qof horta koo guurkii bay nagu qaali gareeyeen koo muhiim ma ahayna taabto laakiin shukaansi aan sharciga waafaqsanayn tusaale ahaan oo kale anagu dhukanshada waa naga xaaraan tusaale ahaan oo kale barteeda anagu tago anagu gabadha marka xilli waagii hore la shukaansanayay Soomaalida inankuna geed buu dhinaca shisho ka soo istaagi jiray inantuna dhinaca ka soo istaagi jirtay marka waxa weeye qaabkaas iyo ha shukaansiga ya waqti hore waqtiga ayaa bedelay qurba joogta bedeshada dhaqan cusub loo leeyahay اوكي مصطفى وجوابي ان شاء الله horta 27 sano anigu wadan ka maqnaa Helsinki deganaa dhaqaalaha horta tiisu waa gooni oo hore loo sheegay halkan waa joogan riis dad maalqabeeno waa israadsan karaan waana dhacdaa ayaguna dhaqaalaha ma wada haystaan qurbi joogto taa horta waana mid la fahmay hadda runtii oo bariyahan dambe hablaha laftigooda way fahmeen in qurbi joogto dhan aysan lacag aad u tiro badan wadan ay tahay un xogaa short term assignment ay u soo baxaan laakiin tan muhiimka waxay tahay dhaqanka uu walaalkay Mustafa ka dhawaajiyay anigu taa waxaan u arkaa vice versa inay tahay oo dhaqan markii laga hadlayo Soomaalidii hore haday tahay de waa gooni oo hadda gooy shaalkii ma xirin geed la hoostaagana ma jiro Mustafa wuxuu uga jeeday dhaqanka soo biiraya qurba joogtu wataan isagu wuxuu soo qaaday actionskay sameynayaan labada shakhsi ama shakhsigu mid uu ka yimaado laakiin badaan macaanaynaya diyaaradaha dusha joogan kuwa sameynaya guri 4 star maxaa hotel 5 star aan kuugu dhisayaan kuugu tumaya dharka ugu wanaagsan baan kuu xirayaa waxaynu ku soo tababaxaynaa maxaa la dhahaa toddobaad waxaynu ku soo qaadanaa Nairobi Addis Ababa wadamada adigu magaalooyinka ugu qurux badan dhaqankaasi inanka Hargeysa jooga Cabdu Haweyni soognahayna waliba suxufiyiin baynu nahay ma karo waxa laga yaabaa inuu gabigiisaba ku shaqeeyo hadduu ugu bato $200 noloshiisa kaliya tahay ku sigibtigrastay marka qurba joogtiin xanaaqine dhaqanku tiyoon ma ahine هيا عبد الرحمن بيرسل كوسو نقول فاك بسم الله waxaan ka dhawaajinayaa walaalkay wuxuu sheegay in qurba joogtu ay faa'iido leeyihiin had faa'iido darrada guurka ay u keeneen qurba joogtu wali cid u keentay ma jirto sanadkan sababtoo ah ardu midaan ku ilowno shimbirkiisu la duulaa oo wixii Ilaahay isku qoray way isku qoreen laakiin se kow maxay keeneen waxay keeneen gurigii kiradiisii waxa laga dayanay qurba joog habkii loo guursanay waxa laga dayanay qurba joog habkii loo dhaqmay waxa laga dayanay iminka inanta waxaad arkaysaa dhisaynka uu labisanayso iyo say isku lohlayso waxaad ka arkaysaa in habkii qurba joog ay tahay inankii halkan joogay wuxuu isku dayayaa inankii qurba joog joogay inuu sidiisii u labisto sidiisii u dhaqmo uu sidiisii u matalo sidoo ahaa marka qurba joog maxay keeneen faa'iido darro inoo keeneen tan lacagta laga bixinayo ama gabaati ha noqoto ama yarad ha noqoto ama guur loo dhigay xaflad loo dhigay ha noqoto qof walba iyo kartidiisa Allah subhanahu wa ta'ala ayaa dadka wax siiya oo arsaaqda bixiya هاي دقيقة سدي هرتي دقيقة سو سعيد شايقين وحكده واجيسنا دور جور إن ولي جد إلا إمي كذا نجوجنو إلا أنت أنا دلنا كهر إن ضبطتكو بني آدم كودم والبلوجوجو طبقات إنجليز كح الله كديجو فيلان الله كديجو أمريكان الله كديجو إن لوكال نولا ولي جد حلي بانكنا وهو أصلا كده واجي إن فكرة ده ضدك قرب جوج ده الله يستو إني العقل يجين أنا سل العقل يسمى بدن كوده marka taasna waa in wax u baahan mataqaana la isu sheego marka ma arko wax ay qurba joog ay kiciyeen sicir barar kiciyeen aniga masalan 1 second aniga masalan waxa jirta markaan magaalada galanoon suurkaas xirnayn suurka Suudiyan soo xirtay laakiin anoo shaar caadi sita oo sandal sita oo surwaalkii Ingiriiska aan ka soo qaatay sita ayaan markaan bacallaha tago waxaad u malaysaa inuu shaarkayga sheegay inaan Ingiriiska imid markaan weydiiyo ma maxay price kan waxaan la iibinayo ma kabaha noqdaan ama cuntaha noqoto wixii doonaan noqoto 3 jibaar dhageysadee 3 jibaar dhibaatooyinkaas aan haystaa aniga naftigeena 3 jibaar cashan aragtidaada waxay tahay inaad qurbo joog tahay Soomaali garan marka ma arko aniga wax ninka Soomaaliyeed ee maanta wadankiisa ku soo noqda meesha doona ka yimaadee oo soo guurtaga intuu guursan lahaa Jamaican iyo naag cad iyo naag Carabiyad ah oo soo noqdo gabar walaashiisa Soomaaliyeed wax ka wanaagsan aniga ma arko anigu waxaan hablaa qurba joogta
ma garatay marka dhaqan xumadana lagu eedeynay actually TV-yadin maanta haddaad daawataan filin hindi iyo filin turki iyo balaayo dhan baa idin furan internet baa idin furan annagu waxba ba idin keenin on dhaqan xumo idin keenin imka timaa inamada magaalada iyo surwaalada ku dhagan markaan arko inamada qurbadu saabo ma libistaan xabashida iyo meelahaas ka keenteen bay la tahay